qurbo joogta reer Somaliland ee ka soo jeeda deegaanada gobolka Hawd Maroodi Jeex iyo waliba gobolka Togdheer ayaa shir ballaaran ay ku qabsadeen dalkani Jarmalka waxa ay kaga arisanayeen sidii ay waxtarkooda u gaarsiin lahaayeen deegaanada ay ka soo jeedaan kulankani ka dhacay dalkani Jarmalka oo loogu magac daray Afgarad Afar ayaa ahaa mid ay dad weyne farabadan ka soo qayb galeen kuwaasi oo dhamaantood ka soo kicitimay gobolada kala gedisan ee dalkani Jarmalka waxaana sidoo kale ka soo qayb galay siyaasiyiin caanka ah Jamhuuriyadda Somaliland oo ay ka mid yihiin gudoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha baarlamaanka Somaliland mudane Cabdulqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde iyo waliba siyaasi Maxamed Aadan Ibraahim Qabo beeshu sutmaado aad baan u faraxsanahay aad iyo aad waan idin soo dhaweynaynaa waqtigiina noo soo hubteen diyaaradaha noo soo raacdeen iyo sida loo kala gelisay baan khaasatan waqtiga nooga timi xariga Ingiriiska وانسويني مدني أشياء يكي كيمي بسوس العالي ما تروح على فرد نحكي أفراد كده عيا جرمال ما يقولون أفراد أربع مرات اللي كم عنا قينا أتشيست أسوا أتشيفتين واحد راد يقولون اللي لا وكرين ملحدنا iyo martisalafta kale reer London yaxlalaana u qalminsan tahay soo wada kulmaysaa wax laga yaabo horta anagu guud ahaan markii aan arinta isku magacaabanay cidna magacawday ma jirin runta marka laga hadlayo dad badan baan soo garacay ugu yiri yaano sidii muuse suudiya xabayd u is magacawday dadka caynka inta badan lahaa waxa uu sheegay hadii aan war hore is magacawnay maanta shicibkaan ka mid ahay horta idinkuna waxa uu fadhiyaan gudidii kama dambaysta hay'adda reerka cidii maanta meedin ugu lahayd horta taas ayaa lagu doonayaa sida wanaagsan ee quruxda badan ee maanta waa ay soo maamushay iyaga yar baa jidda weyn ku jiray waxa sida fiican in uu dadaalka marka soo bariya farta gaadhay idinka jabay taas la doonayaa ku wada ragnimadii inay soo baxdo ina wax badan dadkii u qabataan odayaasha laantooda ay qabsateen runtii oo idin abdi oo barigiina naga soo qayb galay aqli iyo Cabdi Xuseen iyo Xamse Alqaafil intaba iyaguna hadaan dabadii ka reexin idin ma dhacday sida idinku ma sheegteen iyagana waa mahadnaqaynaa ballukumadana waxba ka soo go'aya salaxayna waxba ka soo go'aya farweynintana waxba ka soo go'aya xaqan cadaadna waxba ka soo go'aya in loo siman yahay ay noqonaysaa magaalada council taxka laga qaado ama barkadaheeda ama beeraheeda ama ceelasheeda ama dukaamadeeda ayba wax dooranayaan marka tawaansul la'aantu wax xukuumadda mas'uul ka tahay maaha waa qaanuunka yaala sidaas intii kulankani uu socday Afgarad Afar ayaa la isla qaatay afar qodob oo ay ka mid ahaayeen ilaalinta madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland kobcinta dhaqaalaha siyaasadda iyo waliba waxbarashada deegaanada ay ka soo jeedaan ee Hawd Hargeysa iyo waliba gobolka Togdheer sidoo kale qurbo joogtu waxa ay isla qaateen sidii ay uga qayb gali lahaayeen kulan kale oo loogu magac daray Afgarad 5 oo la filayo inuu ka dhaco magaalada Beligubadle ee xarunta gobolka Hawd Mustafa Xaaji Aadan Haarun telefishinka caalamiga ee Cable TV wararka Yurub